Sanadihii dambe waxaa kobcayay horumarka dhaqaale iyo midka dhisme ee magaalada. Bangiyada, shirkadaha iyo ganacsatada ayaa magaalada ku sameeyay maalgashiyo badan, taasoo Muqdisho ka dhigaysa mid ka mid ah magaalooyinka ugu kobaca badan Geeska Afrika. Horumarkaas waxaa hareer socda aragtiyooyin badan oo faa'iido u leh bulshada. Waxaana soo kordhay shirkado guryaha iyo hantida maguurtada ah maamula, sida Home Property iyo Bangalo, kuwaasi oo la yimi nidaam maamul ee guryaha ah. Shirkadahaasi waxay bixiyaan adeegyo la xiriira maamulidda guryaha, sida dhisidda guryaha cusub, dayactirka guryaha, iibka iyo kireynta guryaha. Bangalo waa company in real estate. Run ahaantii waxyaabaha ay qabatona waxaa ka mid ah property management, oo ah in ganacsigaaga ama hantidaada lagu manage gareeyo, land development, sidoo kale horumarinta dhulka iyo commercial brokerage. Bangalo waxay dhisaysaa ama waxay faraha ku haysaa mashruuceeda ugu horeeyay oo ay ugu magac dartay Skyline Residence. waxaan ahay Home Property oo ah company sameeya waxa la yiraahdo property management ama maareynta hantida maguurtada. Home Property waxaa la aasaasay sanadkii 2018 bishii June. sababta ama baahida ka dambeysay in Home Property la aasaasana waxay ahayd markaas 2018 wuxuu wadanka galayay waxa loo yaqaano booming ama construction ka wuxuu ahay mid aad u balaaran oo meel walba ka bilaabanay. baahidaas anagoo ka duulayna ayaa waxaan aasaasnay fikirka ah Home Property. anagoo ah rag dhalinyaro oo isku umaaday isla markaana baahidaas dareemay inuu wadanka u baahan yahay. sidaa daraadeed ayaan waxaan ku aasaasnay company-ga Home Property oo ah company sameeya maareynta hantida maguurtada. Tani waxay horseedaysaa faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin helitaanka guryo tayo leh, xafiisyo, goobo ganacsiyo iyo maamul wanaagsan oo guryaha lagu maamulo. Kobaca dhisme iyo midka ganacsi ee magaalada ayaa sii kordhaya, waxaana sii furmaya albaabada maalgashiga.